Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race? waxa ay dileen aabihii waxay sidoo kale gubeen gurigoodii waxay cudurka dhimirka ku rideen hooyadii sidoo kale waxa ay kala fogeeyeen isaga iyo walaalihii You should ask yourself who taught you to hate being what God. saaxiibayaal maanta waxaynu ka hadli doonaa haliyey naftiisa oo huray ummadda islaamka oo idin iyo madowga oo dhan waxuu ka mid yahay 10kii qofood ee ugu saameynta badnaa qarnigii lasoo dhaafay. Malcolm X wuxuu dhashay 19kii May 1925 waqtii ummadda madow ee Mareykanka degan ay la kulmayeen cunsuriyad aad u daran waxaana dhalay qoys kooban hooyo iyo aabbo. Hooyadii waxay ahayd Indian oo magaceeda waxaa la dhihi jiray Louis Little halka aabihiina la dhihi jiray Erie Little. Aabihii waxa uu ahaa dadka diinta Kirishtaanka haysta marar badan baa loo diiday inuu tago kaniisadda waayo waxaa la dhihi jiray looguma talagalin diinta Kirishtaanka ay dadka madow sidoo kale meel walba uu tago waxa uu la kulmi jiray cunsuriyad. intaas wixii ka sii dambeeyay Malcolm X aabihii waxa uu go'aansaday inuu ku biiro urur la yiraahdo UNIA waa urur aaminsan inaysan ka helin xuquuq iyo sharaf iyo karaamo midnaba dadka cadi sidaas darteed hadda iyo jeer dadka madow ay waxay u baaqi jireen inay dalkooda Afrika ay ku laabtaan. intaas wixii ka sii dambeeyay Malcolm X aabihii waxa uu hagaardaamo kala kulmi jiray koox la yiraahdo Khulu Khan. Khulu Khan waa urur aan nahaynin si argagixisnimo u shaqeeya waa qolo qaata ku dhar cad iyo koofiyad maxaa la yiraahdo iyadana madaxa ka dhuuban. markuu Malcolm X uu farjir ahaa waxa ay gubeen gurigoodii 2 sano ka bacdina waxay dileen aabihii naxabka ay u qabaan madowga awi. kadib hooyadii waxa uu lees badan ugu yimid dhinaca dawladda oo ku eedeynaysa inaysan 7 caruur aysan hayn karin awoodna u lahayn inay koriso. mar walba ay ku soo laalaaban jireen waxay dhihi jireen aroortan ka qaadayna. markii dambe Malcolm X waxa loo sheegay in hooyadii la geeyay dhakhtarka dhimirka isaga iyo walaalihii waa la kala fogeeyay oo kala gobol baa la kala geeyay bana reekorsada loo geeyay. Malcolm waxa uu ahaa arday wax barta balse waxa uu barashada ka niyadjabay maalin uu macalinkiisa weydiiyay waxa uu jeclaan lahaa inuu noqdo mustaqbalka. Malcolm ayaa yiri waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo qareen ama garyaqaan. macalinkii ayaa ku yiri maya looguma talagalin dadka madow inay noqdaan qareen waxa looga talagalay inay ka shaqeystaan shaqooyinka muruqmaalatada ah. Malcolm X markuu macalinkiisaas yiri waxbarashadii ayuu ka tagay oo waxa uu bilaabay inuu shaqeysto. waxa uu ka shaqeeyay dhowr shaqo mar waxa uu noqday maxaa la yiraahdaa tareen buu shaqeyn jiray mar qaayid buu kabaliyay kaha ayuu shaqo u dhiibi jirtay. markii dambena waxa uu shaqo ka bilaabay meel kalaab ah oo meesha ayuu waxa uu ka noqday caseeye dadka muusikiyaanada iyo fanaaniinta ayuu kabaha u asayn jiray. Malcolm X waxa uu meesha ku bartay isticmaalka daroogada sidoo kale waxa ay meeshaas ku barteen 3 cadaan ah oo burad ah waxay iibin jireen daroogada oo si qasoodi ah ay ku iibin jireen. kadib dawladda ayaa gacanta ku dhigtay Malcolm waxa lagu xukumay 10 sano halka kuwii asxaabtiisa ahaayeen lagu xukumay 5 sano maadaama ay iyagu cadaan ay ahaayeen. Malcolm X xarigiisu wuxuu ahaa bilowga iyo isbedelka xumaan oo dhan oo halka waxa uu bilaawtay nolol cusub. inta uu jeel ku jiray waxa isbarteen in la yiraahdo Bini oo sharaxay awoodda ay leedahay waa akhriska. waxaana kula taliyay in mararka qaar uu tago maktabadda ku dhex yaala jeelka dhexdiisa. Malcolm inta wax ka sii dambeeyay waxa uu bilaabay inuu akhriyo buugaag badan buu akhriyay waxa uu wax badan ka batay taariikhda iyo dadka madow siday ku yimaadeen dalkani Afrika. inta uu jeel ku jiray waxa warqado soo diri jiray laba ay walaalo yihiin waxayna u sheegeen inuu jiro urur cusub oo la yiraahdo ummadda islaamka oo hogaamiye ka yahay nin la yiraahdo Elijah Muhammad waxa uu sheeganayay inuu yahay nabi sidoo kale dadku waxa uu dhihi jiray diintan kaliya wax looga talagalay dadka madowga ah ayaga diinta islaamka ah oo wax laga beddelay ayuu watay. diinta islaamka ay saxda ah oo naqaanay ma ahayn diin siyaasadeed ayuu watay Elijah Muhammad. Malcolm waxa uu ku dhaxay islaamay jeelka dhexdiisa diintaasi walaalihiisa u sheegeenna jeelka dhexdiisa ayuu ku qaatay oo waa uu aqbalay. intaas wixii ka sii dambeeyay akhriskiisa ayuu iska sii watay waxaana dowladda ka dhex bilaabay jeelka dhexdiisa isagoo ka hadlaya dhibka ay ku hayaan dadka cadi madowga. waxaana jeel ka soo baxay 1952 isagoo ka go'an tahay inuu codkiisa gaarsiiyo dadka madow. waxa uu warqad u diray Elijah Muhammad isagoo ka codsaday inuu la shaqeeyo isagoo aan ka rabin wax lacag ah. Elijah Muhammad waa uu ka aqbalay.
muddo kadib Elijah Muhammad markuu arkay Malcolm X dadaalkiisa waxa uu ka dhigay wasiir ka mid ah wasiirada ururka Islaamka. Malcolm waxa uu marar badan u maqli jiray in Elijah Muhammad diinta uu faafinayo aysan ahayn diinta saxda ah. Malcolm X waxa loo sheegay in Elijah Muhammad uu ureeyay dhowr hablood oo isagu shaqaynayay. Malcolm X intaasi uu aamini waayay oo aqbali waayay ninkii uu asagu ku daynayay oo doorka u ahaa in wax eenkaas ay ka suurtoobaan. Uu qaadan waayay ilaa uu indhihiisa ku soo arkay Elijah Muhammad hablihii uu dhibka u geystay. xiriirkooda oo aad u qasnaa ayaa dabayaaqadii 1963 waxaa la dilay madaxweynaha dalka Mareykanka. mar uu saxaafadda warsiinayay Malcolm oo lagu weydiiyay sida uu arko dhimashada madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu yiri waxa aad beerato uun baad goosanaysaa. madaxweynaha Canada oo la jeclaa awgeed ayaa dad badan cadaan ay ka aroodeen hadalka Malcolm iyo qaar ka mid ah madowga. kadib waxaa war ka soo baxay ururka Islaamka oo ku amray Malcolm inuusan hadli karin muddo 90 cisho ah. Malcolm X waxa uu go'aansaday inuu xajiyo markuu ma ka tagay waxa uu dhawoobay in Elijah Muhammad diinta uu faafinaya aysan ahayn diinta saxda ah. waayo Elijah Muhammad waxa uu ku baaqay diin Islaam ah oo dadka madowga ay gaar u yihiin. balse Malcolm marka waxa uu ku arkay dad cadaan ah waliba indhbulug ah iyo madow oo hal weer wax isku lawnaya oo walaal isle oo salaad isla tukanaya. waxa uu Saudi ku soo noqday 21 May 1964. waraysi uu saxaafadda siiyay waxa uu ku sheegay in dadka caadi aysan ku dhalan cunsuriyadda balse ay ku beereen dadka Christianka ah inay ka sareeyaan dadka madowga ah si hal looga helo madowgana dhibaatada uga baxo. Malcolm X waxa uu fahmay inay tahay hol qusaysa muslim iyo galba madowga oo dhan. sidaas darteed waxa uu aasaasay urur la yiraahdo Organization of Afro-American Unity oo noqonaysa ururka midnimada madowga America. waxa uu sidoo kale uu soo dhaweynayay dadka caadi ay rabaan inay caawiyaan. hawlihiisa ayuu iska watay balse hanjabaad ayaa uga imaanaysay ururka Islaamka ah. mar walba ay u go'an jireen inay dilayaan. balse Malcolm waa uu ogaan in cunsuri ah oo cadaan ah ama ururka Islaamka ah ay dilayaan. Malcolm waxa lagu amray inuu ka baxo guriga uu degan yahay. guriga uu degan yahay waxa siiyay ururka Islaamka maadaama uusan ka mid ahayn hadda waxay ku amreen inuu ka baxo guriga. balse Malcolm waa uu diiday inuu ka baxo guriga. 13 February 1965 waxa uu habeen madow ku kacay Malcolm gurigii oo gubanaya balse isaga iyo familkii waa ay ka badbaadeen guriga. 8 maalmood kadib 21 February 1965 ururka midnimada madowga America oo Malcolm aasaasay waxay kulan ku qabanayeen hol ku yaala New York. waxa kadib markuu soo fulay meeshii khudbadda ka jeedinayay ayaa nin holka dhexdiisa fadhiyay wax foodo u ku kaciyay balse intay ku mashquulsanaayeen qoladii Malcolm waardiyeysay ayaa saddex ka mid ah dadkii meesha fadhiyay istoolad ula soo baxay oo Malcolm xabad ku furay. Malcolm waxa fiiraha ka haleelay 12 xabadood meesha ayuuna u geeriyooday. Allah u naxariistee. Malcolm waxa uu ahaa 39 jir u huray naftiisa ummadda Islaamka ah iyo dadka madowga oo dhan. Malcolm oraahadiisu waa ay badan yihiin balse waxaynu ka soo qaadanaynaa qaar ka mid ah. bari hore ayaan ogaaday in aanu xaqiisa helin qof aamusan. si aad xaqaaga u heshana waa inaad xoogaa buuqa darisaa. nabadda iyo xuriyaddu ma kala hadhaan. qofna nabad kuma noolaan karo isagoo aan xuriyad haysan. inaad siito adigoo dulman dhibaatadana ka aamusta naftaadana difaaci weyso dambi ayaan warkaa. waxauna wadoon hufan qaanuunkana raac dadkana wada qadari kaa kugu hadgudbana hawaasha u dir. Controversial and bold young captain, and we will smile. Many will say, turn away, away from this man, for he is not a man, but a demon, a monster, a subverter, and an enemy of the black man. And we will answer and say unto them, did you ever talk to Brother Malcolm?